dhaqaalaha waxay ka sugeynaa shisheeye dhaqaalaha annaga hayna dhaqaalaha idinka haya jeebabkeena ugu wada jiraan ma ka soo bixinaa jeebab mudane madaxweyne ra'iisul wasaare hortiina ku ballanqaadina inaanu dalka u dhiman doono horey ugu soo dhimanay haddii qofku naftiisa huray oo dhiiggiisa uu ku daaliyey waxaa loo baahan yahay idinku inaad ku kabtaan wixii dhaqaalaha mar hadday sidaa tahay waa waajib diini ah wadani ah inaynu garab istaagno naf iyo maal waxaan hayno inaad isku barbartaagno ciidamada qaranku waxay u dhaarteen ummadooda inay cadowga gudaha iyo kuwa dibaddaba labadaba ay ka difaacaan ciidankeenna oo aynu nolol siino ayaa dalkooda difaaci kara kalsoonida bulshadu ma dhismayso haddii aanay ku hurdin ciidan difaaca cadowgu ma soo hunguriyeyn karo cidda leh ciidan daryeelan oo cudud iyo taya leh ummadi midnimo iyo horumar ma gaarayso haddii aanay lahayn ciidan ay u baxsato wakhtiyada adag oo ay ku jirto ciidamadu waxay galaan iyo waxay gudaanba waan ka dheragsan waa nolosheenni waa noloshii qaran waa noloshii calanka maanta fursad ayaan haysanaa soomaaliyeed waxaan idinka doonaynaa inaad taageertaan ciidankeena inaad dhaqaalo ku bixisaan haba ugu yaraato haddee noqoto hal doolar ciidanka soomaaliyeed waa qaali waxaan ugu yaboohay anoo xildhibaan galmudug oo mushaar qaadan anoo hooyo carruur sideeda korisay iyo kuwa sii dhaleen ah anigoo aan ahayn ganacsade anigoo aan dhaqaalo buranayn $1,000 aan ugu deeqay ciidanka soomaaliya 17 degmo waxay hadda i soo gaarsiiyeen inay ku deeqeen lacag gaarayso $8,500